بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. walaalayaal casharkan wali waxaan sii wadnaa data typeski marka casharkani wuxuu ku saabsan yahay waxaan PHP programming loo yaqaano boolean oo ah value ama macnaha qiimo sax ama mid qalad marka sidii marka hore baan uga hadlay hadda casharkan wuxuu ku saabsan yahay boolean waa daato u taagan run iyo been sida run ama been marka sometimes waxaa dhacaysa programka markaad rabto inaad waxyaalo badan aad hubsato sida kaliya ku hubsan kartaa waxay yahay sometimes inaad isticmaashaa boolean variable masalan haddii file upload lagu sameynayo oo qofka maaragtay fileka uploadka ku sameynaya button u sameysa buttonka aad tiraahid upload ku samee hadduu uploadka hit garayo mar alla markuu upload hit garay haddii filekii lagu dhajiyay uploadkii then waxaan isticmaali karnaa tusaale ahaan boolean on leenahay haddii fileka uploadka uu sax noqday ama uu bahalka lagu jiiday then uploadkii wuxuu noqday mid lagu guuleystay oo waxaan ka dhigaynaa valuegaas macnaha true marka bal aynu fiirino sida loo isticmaalo marka tusaalahan aan fiirinayna marka insha allah marka sida halkan ka muuqata PHP variable sida example-ladeeni waxaan u isticmaalaynay sida halkan ka muuqata marka hore waxaan qeexaynaa wax la yiraahdo check waxaan ku kaydinaynaa tiro ah true haddii uu value check valuegaas uu yahay sax then waxaan screen ku qoraynaa tiro waa tiro sax ah arin macnaha string oo meesha macnaha tiro qoraal oo meesha aan ku qoraynaa wuxuu noqonayaa tiradan waa tiro sax ah marka hore waxaan ku setup garaynay valuegi check value inuu yahay true then markaan rabna inaan hubsano bas waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho if statement wax kale maaha programmingka wuxuu rabaa inuu ogaado waxan inay wax runa yihiin ama wax been ah hadday run tahay marka wuxuu noo qorayaa tiradan waa tiro sax ah marka bal tusaalahaas sidii aan u demonstrate garan lahayn aan tuso marka tusaalihi hadda aan implement garaynayna isku dayayna inaan implement garayn hadii la yiraahdo filekan cusub waxaan haysanaa file cusub aan ku koobiyayno codekii aan kasoo koobiyaynay meeshii aan tusaalaha u isticmaalaynay marka hore bal aan save garayno save as waa inaan ku qornaa boolean demo.php aan save garaynaa marka sida halkan ku cad ujeedaan wax kale ma aha mar walba waxaa muhiim ah in codekaaga u dhaxeeyo PHP labadaas astaamood gudahooda inuu u dhaxeeyaa marka halkan waxaan sameynay waxaan qeexnay variable la dhaho magaciisa check value wax kale ma aha waxaan ku setup garaynay true waxaan check garaynaynaa waxay tahay check value inuu true yahay in kale waxaan yiri programka wuxuu qoray wax la dhaho if statementiga wax kale ma aha waa decision making waa wax go'aan gaaray go'aankaas oo waxaan inay sax yihiin inay qalad yihiin haddii tiradu tiro run ah tahay then marka screenka waa inuu computerka ku qormaa tiradina waa tiro sax ah bal aynu tusaaleyno insha allah haddii ilaahay yiraahdo aan save garayno marka waa inaan tagnaa localhost meeshii wax noogu kaydsanayeen oo ahayd kaydka PHP waa inaan filekii aan ku aadinaa browserka filekii anaga aan sameyn oo ahaa boolean demo.php wuxuu leeyahay syntax error ayaa jiro muhiim weeye khaladaadka sida loo baaro iyo sida maaragtay looga maaragtay tanasuli inaad barataan muhiim weeye marka hadda qalad ku bilaabmay bal wuxuu leeyahay bal fiirino wuxuu wax ka sheegayaa in line 10 uu wax si yahay bal aanu fiirino muhiim weeye inaad ogaataan waxa meesha ka jira marka line 10 okay sida waqtihay wuxuu raadinayaa astaantaas labada astaamo kala duwan because waxaan ka soo qaadanay documenti kale isku marka haddaan hadda dhahno save haddii sida aan ujeedadeenu ay tahay programkeena uu jeegareeyo valuega la dhaho check value uu noqdo mid sax ah oo true ah then screenka waa inay ku qorantaa tiradan waa tiro sax marka aynu tijaabino
haddana refresh ku sameyno wuxuu leeyahay problem ayaa ka jira line 8 halkan ka muuqato waxaan ilownay calaamadii dollar sign-ka marka waa sahlan tahay okay waa ujeedaan marka waxaas wixii hadda aan arkaynay oo ahaa syntax error wax kale maaha waa khalad programkaaga ku jiro aad saxaysid waa shayga kaliya aadan macnaha aadan meel u dhaafayn mar walba program qorayso khalad waa jirayaa waxay iloobaysaa semicolon waxay iloobaysaa waxyaalo badan ayaad iloobaysaa marka programku mar walba wuxuu isha kugu fiiqayaa meesha uu u filayo qaladku inuu ku jiro marka adaa la rabaa inaad ogaatid meesha ugu dhib badan oo programming marka qofka bilaabaya ugu dhib badan waa meeshan marka waa sahlan tahay marka waxay u baahan tahay adkaysi yar marka hadda si programkeena maaragtay aan hoos u dhigo kan si aan aragno soo waxaan samaynayno marka waxaan idhi programka haddii valuegan check value uu yahay mid saxa then screenka noogu qor tira saxa ma fahamtay haddii sidoo kale waxaan samayn karnaa wax else statement la dhaho laakiin hadda tirada intaas tusaale ahaan aan ii tuso because muhiimaddu waxay yahay if statement waan baran doonaa casharada soo socda hadii la yiraahdo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad fahamno sida loo declare garay sida maaragtay loo isticmaali karo program ahaan ya programo soo socda ayaan waxaas oo dhan ku baran doonaa hadii la yiraahdo waxaan sii wadin doonaa casharadan kulley waxaan isku arkaynaa casharka dambe hadii la yiraahdo mahadsanidin